بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داودن halkan waa telefishinka danan ku soo dhawaada warkii oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale ku celiyay in qaadashada kaarka niiraha ay tahay waajib maalintii labaad magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya shirweynaha culimada Soomaaliyeed intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan caawan waxa idin akhrin doona anigoo Cabdulqaadir Duco madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyay qaadashada kaarka niiraha ama national ID-ga in markaasi uu yahay mid waajiba qof kasta oo Soomaali ah cadeynaya muwaadinimadiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in adeeg kasta oo bulshada loo qabanayo inay muhiim tahay in lagu xujeeyo in niiraha ama kaarkaasi uu wato hadduu soo wadanina wax shaqo ah loo qaban karin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arimahaasi ka hadlayna waa kan horay u socona inta u socona adduunyada casriga ah ee aan ka midnahay inaan si dhab ah uga mid noqono adduunyadu waa generous deeqsi annagoo wax walba naga maqan yihiin aqbashay wax walba oo rabnoon codsan noo yeeshay kan noo yeeshay war annaga isku fadhina annaga iska kacno kaarka haday tahay aan samaysano dastuurkeena haday tahay aan dhameystirano doorasho qof iyo cod adduunyada taqaana haday tahay aan qabsano xeerarka caalamiga ah ee laga rabo ee caalamka uu ku dhaqmo ama argixisada la diraato ama muxuu ahay dhaqaalaha iyo sida loo maareeyo ha aato ama beeyada sida loo maareeyo ha aate adduunyada u degan aan qayb kana aan la nimaado dawladda Soomaaliya ee aniga madaxweynaha ka ahay hadafka ilaa kaas waay waxaan u noolaanaynaa sida adduunyada u nooshahay ma ku noolaanayno caves iyo mugdi iyo meel aan la garanayn iyo dad aan la garanayn iyo wax ma ku noolaan karno enough is enough waa ka soo gudubntaas sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed wax kasta oo wanaag ah qiimo loo bixiyay leeyihiin ID card-ka haddii aad ku dhibtooto qaadashadiisa ama saf dheer aad u gashay ama muddo ay kugu qaadatay waa price-ka ay leedahay waxa noloshaada inta ka dhiman oo dhan ku anfacaya waaye saacadaha yarka oo safka ku daahaysaay waxa ka noqonay hay'adda niira waxaan faraynaa dadka muwaadiniinta inta awoodda ay la eg tahay oo loo fududay karo la sahri karo loo dhaweey karo meesha ay joogaan kaarka in loo dhaweeyo iyo qaadashadiisa aad iyo aad meel kasta magafa joogo dadka ID card-ka ayaga aan qaadanayn business-ka ka dhex sameeya qaadashada ID card-ka safka inta ku soo hormara warqadda inta qaato dadka ka iibsada waxaan leeyahay dadku waa ciriiriyo haysiine nin ama gabar gurigeedii inta seexatay saaka ka soo kacday soo qubaysatay soo quraacatay soo libisatay ayaa waxaad ka hormariyo haysaa mid laga yaabo xalay inuu meesha ku bariyay magaalada Muqdisho maalintii labaad waxaa ka soconaya shirweynaha culimada Soomaaliyeed xasan cali aadan helane ayaa qodobkaasi faahfaahinaya maalintii labaad waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirweynaha saddexaad ee culimada Soomaaliyeed waxaana ka qayb gashay culimo oo diin kala duwan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada dalka dibadiisa iyo sidoo kale kuwa xilal ka haya dawladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dadka ka qayb galay wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo halkan ka qayb galay shirka inta uu socday waxaa halkan la isku dhaafsaday sidii culimada u midoobi lahayd fariin midana ay uga soo bixi shirka oo la soo xidhi doonto maalinka Khamiista qaar ka mid ah culimadii halkan ka hadlay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay faahfaahiyeen dhammaantood ahmiyadda uu shirka leeyahay
neecdu waxay qabato shaqo badan habeenkaasoo dhan tawaasulo wadaa waa la hadlayaa waa halka fursad dumar laga helaba laakiin wadaadkan waa camali aniga shaqadii la iga baahnaa waa keenay mas-uuliyaddii waa qabtay hebel hebel waa qabtay laakiin yaa garanaya maxaa leen ka rabaa marka ninka ragga culummada neec macnawiya soo qaado gabadhan aad qabta la hadal ustaad oo miisaaqa galay oo midowga samaystay oo waa culimmada Soomaaliyeed madaaristii waa wax midoobay madaaristii runtii fahamkii iyo dacwadii isla waday inay ka midoobaan sidii ay arrinta ugu wada fulin lahaayeen waxaa mudnaan mudan gabdhaha inay awal ka yihiin weliba waxaa miisaal u soo qaadanayaa waxaa halkudhig noo ah markaan culimmada Soomaaliyeed iyo midowga aan anagu hogaaminayna halkudhig waxaa noo ah ana saxwi ana suufi ولأهل السنة أنتمي واحد جدي سكلمة أنا واحد قبل الصومالية عالمة ده قبلها الصومالية هجان كوا قدومي هوا أبنا هالك بناك أنت سوي استكتي وأنا ما أنتين لو ولا قادني وكأب ترستي مركب قبل يويل علماء الصومالية وحن سلا قادني أنا كم يدونه دل كان يدت كان إنسان وهو جامل لهن إنسان هرمرن وجالسين لهن hara la yidhahdaan dhisnay si loo kaalmeeyo arrimaha Soomaaliya ka dhaco annagoo wada jirno oo gobol kasta ka nimid oo qabiil kasta leh ayaa haddana u gurmanayna gobol kasta maalin suuq gubtay u gurmo maalin duufaan ka dhacay bari u gudmo maalin u gurmo gada u gurmo maalin maaragtay fatahaad hiiraan balweyne u gudmo maalin waxa u guduntaa maalinba meel si aan u garab u siino dadkeennii asalkaasi aan uga madaarisada oo maalan noocan ahlu tasawufka la yiraahdo dadkii ka maqan gowshaas waa u fidsan tahay in la ganciyo oo meesha ay ugu kaalmeeyaan oo ugu garab istaagaan walow hanaga qaato muddo dheer culimada kale oo saxaabada saas oo kale ayagana saas ay iskugu maqan yihiin hadda markii dadka la waco intaan culimada hadda la wacay dal iyo dibid saas loo kala qiibiyay qofkii markaas uu matali karo ayuu wacay saas ku soo dhaweeyay oo meesha hadda aan ka joognaa oo ka fadhinaa insha Allah taasaan sii wadi doona qof laga maarmaayo ma jiri doono dadka dalka joogo iyo culimada dibadda joogaan rag iyo dumarba waxaan diyaar u nahay in insha Allah majmacaas ama midowgaas ay qeyb ka noqdaan qofkii uu ka ganaco dadka jooga inuu u mathalayana jazaahullah khair xasan calaadan dan TV muqdisho warka aad kala socday telefishinka dana saaxiib la naga intaan ugu ducanahay barrow ayaan u mahadcelinahay nabad kali soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya